السلام عليكم. موضوعنا maanta waxa ku saabsan yahay maalmihii ugu saameynta badnaa ee soo mara caalamka iyo sidoo kale dagaaladii ugu dhimashada badnaa taariikhda. dilkii khaarijinta ahaa ee loo geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka John Kennedy ayaa waxay ahayd dhacdadii ugu naxdinta badneed ee soo martay qarnigii 20aad. weerarkii 11 Sebtembar waxay ahayd dhacdadii ugu saameynta badneed qarnigan aynu ku jirno. bishii Sebtembar ee sanadkii 2001 waxaa weerar argagixiso lagu qaaday xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo xaruntii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon. weerarka oo ahaa mid loo adeegsaday 4 diyaaradood. laba ka mid ah diyaaradaha waxaa lagu dhuftay labadii dhisme ee loo yaqaanay Twin Towers. diyaaraddii saddexaad ayaa lagu dhuftay xaruntii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka, halka ay diyaaraddii afraadna ku burburtay hawada isla markaana ay ku soo duldhacday gobolka Pennsylvania. weerarkii nukliyeerka ee Japan bishii August 1945 ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa bam nukliyeer ku riday magaalada Hiroshima ee dalka Japan. waxay ahayd markii ugu horeysay dagaal loo adeegsado hub nukliyeer ah, iyadoo 3 maalmood ka bacdina bam kale lagu dhuftay magaalada Nagasaki ee isla waddanka Japan. kacdoonkii Ruushka bishii Oktoobar 1917 Ruushka waxaa ka qaraxay kacdoonkii loogu magac daray Bolsheviga. waxa uu ahaa dagaalkii sokeeyay ee u dhexeeyay dowladdii Ruushka iyo xisbigii Bolsheviga uu hormuudka ka ahaa Vladimir Lenin. kacdoonkii Ruushka waxa uu ka mid ahaa dagaaladii ugu dhimashada badnaa caalamka, waxaana ku geeriyooday ku dhowaad 20 milyan oo ruux. kacdoonkii Taiwan sidoo kale waxaa loo yaqaanaa warshadii dagaalka ee Taiwan. waxay ahayd dagaalkii sokeeyay ee Shiinaha laga soo bilaabo 1850 ilaa 1864 intii u dhaxaysay hogaankii Manchu iyo boqortooyadii Taiwan. waana dagaalkii ugu dhimashada badnaa taariikhda marka laga yimaado dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana dagaalka ku naf waayay tiro lagu qiyaaso ku dhowaad 30 milyan oo ruux. duulaankii ciidankii Tataarka imbaraadooriyadii Tataarku waa mid ka mid ah maamuladii adduunka soo maray tii ugu baaxadda weynayd, waana argagixii ugu weynaa ee soo mara taariikhda. dhulka ayay intiisa badan qabsadeen, waxaana la waayay cid hor istaagtay ciidamadii Mongoolka. badka guud ee imbaraadooriyadii Mongoolku waxa uu ahaa 3 milyan kiiloomitir iskuweer, waana dhulka weyn qaaradda Afrika oo dhan. tirada dadka ay xasuuqeen ciidankii Tataarku waxay gaadhayeen 30 ilaa 40 milyan oo ruux. dagaalweynihii labaad ee adduunka taariikhda bini'aadamka waxaa soo maray dagaalo lagu riiqmay oo dad badan ku dhinteen, laakiin ilaa hadda lama hayo mid la mid ah dagaalweynihii labaad ee adduunka uu hormuudka ka ahaa Adolf Hitler. waa dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee soo mara taariikhda. tirada dadka ku geeriyooday dagaalka waxaa lagu qiyaasaa 85 milyan oo ruux. dhinaca Soomaalida maalmihii ugu saameynta badnaa ee soo mara taariikhda waxaa ka mid ahaa duqayntii gumaystihii Ingiriiska ee magaalada Taleex. waxay ka mid ahayd dhacdooyinkii ugu naxdinta badnaa ee soo mara taariikhda Soomaalida, iyadoo ahayd markii ugu horeysay diyaarado dagaal loo adeegsado dhul Afrikaan ah. dagaalkii 1977 23 Sebtembar 1977 ciidankii Soomaalidu waxay ka tallaabeen xadbeeneedka Soomaali galbeed, waxayna afka saareen gudaha dhulkii Soomaaliyeed ee ku jiray gacanta Xabashida. ciidankii Soomaalida ayaa ku guuleystay inuu xoreeyo dhulkii Soomaali galbeed, waxaana Xabashida soo wajahay guuldarro iyo jab aad u ballaaran. intaa kadib Xabashida waxaa u soo gurmaday ciidankii Midowgii Soofiyeedka ee Ruushka, waxaana halkaa lagu jebiyey ciidankii Soomaalida. 15 Maarch 1978 dhulkii Soomaali galbeed si rasmi ah ayay mar labaad ugu dhacday gacantii Xabashida.